warbixin ka soo baxday dalka India ayaa waxaa lagu sheegay walaaca dowladda dalkaasi ay ka qabto qorshaha dalka Turkiga ee Geeska Afrika gaar ahaan qorshihiisa lagu dhisayo saldhigga hawada sare ee Spaceport ee gudaha dalka Soomaaliya. Walaacani waxa ay ka dhasheen taageeradii dhawaan dowladda Turkiga ay u muujisay Islamabad xilli saray ay u kacday xiisadda u dhaxaysa India iyo sidoo kale Pakistan. Dowladda India ayaa sheegtay in dhismaha airspace-kaasi uu khatar ku yahay dowladda dalka India iyadoo Turkigana ku eedeysay taageerada iyo sidoo kale garab istaag uu muujiyay dowladda dalka Pakistan oo waqtigan xiisad xoog leh kala dhaxayso dhigeeda dalka India. Turkiga ayaa la sheegay inuu u muuqdo mid wajigiisa u jeestay dhinaca badweynta India iyadoo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan lagu soo waramayo inuu horumarinayo qorshaha lagu dhisayo xarunta daahfurka dayax-gacmeedka iyo sidoo kale tijaabooyinka gantaalada fog gudaha dalka Soomaaliya. Qoraalka sidoo kale waxaa lagu sheegay Turkiga ayaa wada hadallo toos ah waxa uu la yeeshay dowladda Soomaaliya si saldhiggaasi u hirgeliyo xeebaha bari ee dalka. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid qayb ka ah istiraatiijiyadda ballaaran ee uu Ankara ku doonayo inuu xoojiyo joogitaankiisa teknoolojiyadeed ee militariga gobolka. Juqraafi ahaan Soomaaliya waxay leedahay meel istiraatiiji ah iyadoo dhawaan khadka dhulbaraha Equator ee isla markaana toos ugu furan badweynta Hindiya, taas oo dowladda dalka India ay sheegtay in khatar ay ku ahaan karto iyada sidoo kale wadamo badan oo caalamka. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay hindisahan sanadkii 2021 isagoo qayb ka ahaa dadaalada Turkiga ee ku wajahan horumarinta teknoolojiyadda hawada sare iyo gantaalaha casriga ah. Mashruuca waxa uu muujinayaa doonista Ankara ee in awoodda ay ku fidiso xuduudaha ka baxsan dalkeeda, waxaana marka loo eego xogta Hindiya ay sheegayso lagu tilmaamayaa arrin khatar ku ah jawiga amniga iyo sidoo kale in guud ahaanba caalamka Turkiga iyadu awood gooni u taagan isaga dhigto. Dowladda dalka India qoraalka ka soo baxay oo lagu daabacay indian.com ayaa waxaa lagu sheegay in walaacan loo baahan yahay in dunida oo dhan meel qura ay kaga soo wada jeedsato si loo arko dowladda dalka Turkiga oo iyadu markaan doonaysa inay ballaariso gantaalaheeda teknoolojiyadda si meelo fogfog ay u gaarsiiso. Airspace-kaas cusub ayaa waxaa lagu sheegay in Turkiga uu saamaxayo in guud ahaanba gantaaladeeda fogfog iyadu halka ay ka isticmaasho, waana khatar kale oo dalka India xilligan uu muujinayo oo ku aadan walaaca Ankara uu ka qabo oo ku aadan taageerada sidoo kale garab istaaga dowladda dalka Pakistan oo xilligan khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo dowladda dalka India. Barbilowgii dagaalka India sidoo kale Pakistan, dowladda Turkiga si cad ayay u sheegtay iyadoo gagamban oo aan leexan in si toos ay u taageerayso Pakistan, waxaana qayb ka ahayd diyaaradaheeda dagaalkii lagu weeraray dalka India kaas oo ka dhashay khasaare kala duwan. Afhayeen u hadashay dalka India ayaa iyadu waxa ay sheegtay garabka Turkiga uu siiyay Pakistan in saameyn ay ku yeelatay jabkii soo gaaray ciidamada militariga dalka India, waxaana dowladda India ay qiratay in weerarkii u dambeeyay ee dhacay khasaare kala duwan uu gaarsiiyay balse eedda dusha ay kaga tuurayso dowladda dalka India oo ay sheegtay in dagaalkaasi si toos ah u soo gashay. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. Internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. Internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.